dadweynaha ku nool deegaanka Sibiley oo ka tirsan degmada Dhoqosho ee gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay baahiyaha asaasiga oo aan ka jirin gabi ahaanba deegaankan. bulshada deegaanka Sibiley ayaa dhawaaq dheer ku sheegay in guud ahaanba deegaankan uu lahayn goobo caafimaad, rug boolis, isla markaana ay lidato xaaladda waxbarasho ee deegaanka. waxaanay dadkan sabab uga dhigeen dugsiga deegaankan oo yaraaday waa dhismo ka kooban 2 galaas, isla markaana ay wax ku dhigtaan ardayda 1 ilaa 8. dadka deegaankan ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay baahidooda wax kala qabato maadaama ay yihiin muwaadiniin xaq u leh in ay dawladooda ka helaan caafimaad iyo waxbarasho. halkan markaan ka hadlayaa waxa weeye goob ka mida magaalada Sibiley. dadka wixii xanuunsada halkan wax ka qabta ay ka waayaan meesha lala qabanayaana waa Burco. dadku markuu xanuunsado wax dhexda ku dhintaan waxna halkooda loo daayaa qofkii aan qarash haysanina bartaas ama ha dhinto ama ha noolaadee uu daaya. waxaanu u baahannahay haddii aanu xuduudanahay ama magaalada Sibiley waxaanu u baahannahay in wax nala qabto. ta kale dawladdaanu ka codsanaynaa waxaanu ka codsanaynaa dawladda amniga inay ilaa xuduud baanu joognaaye ay saldhig nooga sameeyaan baanu dawladdana ka codsanaynaa. gelinka hore iyo gelinka dambe waa la shaqeeyaa. waxaa joogaan 8 galaas waa 3 macallin qorweey. marka halkaan waxaan ku basan ciidiga khusayso in maaragtay galaasyada in loo kordhiyo oo meel dadku ay galaan caruurta ay gasho oo wax lagu barto halkaana maaragtay looga sameeyo aan u baahan iyadana. qodobka saddexaad waa xagga amniga. haddaan amni jirin waxba ma jirto nolosha. waxa weeye koowaad waa amniga weey. waxa weeye haddii marka waxa weeye meel aan go'aanimo jirin nololna ma taalo. waxa weeye marka in laga dhiso halka ma xarun boolis oo wixii maaragtay halka amni darro nagu keena de maaragtay lagu qabto. maaragtay ilaa 8 galaaska 8aad baa dhigta halkan ilaa 1 8 galaas waxa ku jirta 2 fasal qura. markii ay qaadi weyday caruurtii 2 galaas ay qaadi waayeen galaaskii baa 3 qaar baa 3 ay wada fadhiyaan qaar 4 baa fadhiya. markii qaadi waayeen dibadda baacadkii qaar fadhiyaan breeda qaar baa markii la waamay laga gali ka dama largay. qaybtan iskuulka waxa weeye waa 2 galaas oo qura. ardaydii ugu horeysay eerka ahayd maanta ay foto ku soo haysa ka soo baxaysa. iskuulka dhibaato weyn baa naga haysata. waxay nooga haysataa waxa nagu yaraaday fasalladii 2 galaas mid walba waxa fadhiista 3 galaas. galaasna dibadda ugu dhignaa. wixii kale ee markaa baaqi garoobayna waxaan ugu dhignaa gelinka dambe. marka sidaas ay noqotay hawl aad u weyn inay meeshii ka jirto. haddii alla ka dhigayo markaa dawladdana waxba nagu meesho kordhino maanu arag. meelaanu geyno ma hayno. halkan aanu ka qaadnaa hawd baa hadii la doono laga keenaa. Dhoqoshay baa laga Dhoqoshayna waanu ka qaadnaa. waxaanu ku qaadnaa ma hayno imika markii hore waanu qaadi jir. markii hore aan abaaru nagu dhicin waanu qaadi jir. laakiin imika ma qaadno. baahida inta jirto qof kasta ama indhihiisa uu ka arkaya. baahida waxa dabooli kara dadka u dhashay magaalada. maanta alxamdulillah taagan mid ilmihiisa Sacuudi Arabiya joogo iyo mid Mareykan jooga iyo mid Canada jooga iyo mid Hargeysa jooga iyo mid China jooga iyo mid Itaaliya jooga. innaga ayaa waxaan u baahannahay 2 bilood gudahood in 4 galaas aan ku soo dhisno. iskuulku wuxuu ka kooban yahay 2 galaas oo qura. ardayda dhigataana waa 8 galaas weeyaan. marka laga soo bilaabo galaaska 1 ilaa galaaska 8aad. marka waxay noqotaa in qaarna galaasyada loo kala baneeyo oo marba qaybe ay gasho qaarna dibadda loogu dhigo. maanta 2 galaas iyo office-ka ayaa Sibiley u iskuula. dadka markii xooluhu ku bixeen sidii horeba loo soo sheegay dhowr boqol oo qof waad aragtaan ayaa halka fadhido bacadka wax loogu dhigaya. wasaaradda caafimaadka iyo ciddii ay qusayso wasaaradda waxbarashada iyo dadka deegaanka iyo ciddii oo qosayso waxaan leeyahay arrinka iskuulka fadhiga ha looga kaco. deegaanka Sibiley waxa lagu xasuustay inuu ka mid ahaa deegaanadii loo qaxay xilliyadii colaadda iyo dagaaladii u dhaxeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyo ururkii Sanam. waa Maxamed Bashiir Nuur Greek, Ariel TV, Burco.